haybadda u dhaxaysa maxamed ibraahim cigaal iyo wixii ka dambeeyey maxamed ibraahim cigaal ayaa waraaq loo geeyey anigoo gabilig jooga allah yarxamo intuna dhiman markaasaa lagu yidhi ninkan ina samatarihi waxaan buu sanad walba qoraa haddana gabilig gu kastaba yimaadaa uu jooga haddeerna gabilig buu jooga marka ha la soo qabto ha la xidho dadkii allah yarxame xuseen tanzani professor xuseen tanzani oo la jooga ayaa ii sheegaya markaasuu waraaqdii buu ka qaaday sidaasuu u eegay markaasuu buu yidhi wuxuunbuu qoray soo maaha haa rasaas miyuu soo qaatay maya de waraaqdii intuu dib ugu tuuray buu yidhi ininkuna ordoo qorade markaa wuxuu isku qabay kalsooni buu isku qabay in qoraalku fasax yahay hadalku fasax yahay wixii nabadda rabshad gelinayaan ay dembi yihiin marka in sidaa loola dhaqmo sidii maxamed ibraahim cigaal u dhaqmayey in dadka loola dhaqmo ayay ku tusasaa inayna meesha oolin ta kale waxa weeye gabadh aabbaheedoo xanuunsanaya u timiday inay aabbaheed ka kaxayso oo la soo daweeyo inay u naxariis qabaan ayaa weji iyo walaaltinimadu ahaan lahayd laakiinse inta dhowr bilood meeshii lagu hayo jeelkii ee telefoonkeegii la baadho ee dabadeedna la aflagaadeeyo 3 sannadood baan kugu xidhnay cadownimada intaa leegi meeshay ka socoto anigu garan maayo